sheekh cabdiraxmaan dheere oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa khudbadii Jimcaha ee maanta waxa uu kaga hadlay bandhig faneedada muddooyinkii ugu dambeysay baa lagu qabanayay gudaha magaalada Hargeysa isagoo wasiirka diinta ee awqaafta ee Soomaaliland ugu baaqay in haddii uu wax ka qaban waayo uu jagada baneeyo waa sida uu hadalka u dhigay isagoo sheekhu sidoo kale fariin u diray shacabka reer Soomaaliland sheekhu arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxa walaalayaal waddankeena ku cusub riwaayadaha shawyada ah ee la dhigaya lacagaha badan lagu urursanayo ee laga yaabo inan yar oo reerkoodina ka farabaxay oo fidnoobay ilaahay iyo rasuulkiisa raali ahaanshahoodina bari hore ka huleelay cadada ilaahayna urursado oo kaydsada inuu ina fasaadiyaa inay ku qaadanayso daqaayiq iyo waqtiyo yar oo aad u kooban $100,000 si dhib yar inuu isaga urursan karo haddii la yidhaahdo dadka xanuunsanaya cisbitaal ha loo dhisanaa dawladdu may dhista cashuur bay naga qaadaan bay odhanayaan daqiiqadaba haddii la yidhahdo heblaayaa show dhigaysana $20 baa la isla bariyaa iga qabo way buuxdaaye naga joog baa qaar lagu yidhi baa layidhi war iska joog way buuxdaay mae waanu istaagaynaaye naga qabta ummadda noocaasiihi halkay ka helaysaa wanaag halkay ka helaysaa raxmad halkay ka helaysaa horumar halkay ka helaysaa ictiraafka ay raadinayso iyo wanaagga aakhiriyada adduunyo ee ay doonayso qaarkood waxay u samaysteen meherado ayaa loo samaystay beelaha ku yaalla halka niyu Hargeysa qaarkood waxa ka dhaca dhammaanteen waynu wada ognahay waanaynu wada garanaynaa hablaheeni iyo inamadeenni baa lagu qaawiyaa oo hadhiya xashiishadaha lagu iibiyaa khamriga lagu iibiyaa hablaha yar inamada yarba xumaantii tumashada lagu baraa afarta galabnimo la bilaabaa afarta aroornimona waa la soo xiraa inta inan yar iyo inan yar baa ku xareysan waxaad u haysataa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaanu karin dhulkaynu la gooyo waa karaa buqcadda fasaaday dhulka la jaro laakiin ilaahay wuxuu eegayaa inaynu inagu xumaanta ka dhiidhino iyo inuu inagu wada camimo ciqaabka yeen kale ilaahay haddii qofkii leexdaba uu qabanayo adduunyada korkeeda cid kaga mutageen walow yu'aakhidhu allahu an-naasa bima kasabu ma taraka calaa dhahriha min daabba hadduu ilaahay ku qabanayo dadku waxay samaynayaan arlada korkeeda wax tukuba ilaahay kagama tageen kuwa beeraha samaystay ee ku xaraystay xayawaanada ilaahay wuxuu karaa ku rabaystay inuu ku soo daayo dabeedna uu laba u kala gooyo kaneecu ilaahay ku sallidi karaa sidaa daraaddeed dadow fadhiga laga kaco war ummadaasi inaga dhasheen inagayna la dhasheen waxay samaynayaan iyaga ku gaar noqon maayo dhaqaalaha ka soo galiyo way ka arsaaqsadaan ilaahay agtiisa qiimo ka yeelan mayso inaguna fadhiyi mayno nabadda ku fadhiyi mayno mas'uuliyadda waxa qaadaya kow madaxweynaha mas'uulka kow number 1 waa isaga weey mas'uuliyadda labaad waxa qaadaya taliyaha bilayska ee ammaanka uu dirtay ee wuri ammaanka ilaali fasaadkaana daawanaya mas'uuliyadda saddexaad waxa leh wasiirka diinta iyo awqaafta ee ilaahay uu diintan markaa mas'uul uga dhigay hadaan u qaadi karayna inuu iskaga tagaayay mas'uuliyadda afraadna culimada leh tashanaadna shacabka ayaa leh ilaahay aynu ka baqanno culimo iyo caamo badbaadi mayno madax iyo mijo badbaadi mayno wallahi inaan koob cagaar leh ka soo durdurinayn haddaynaan iska qaban